السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابك سوري وادي يوتيوب جانك سمير قلنجو. هذا جانك عصب تهينا إنها سبسكرايب يلايك سيسان هذا إلى جوكتين وكم هسنتين. ما أنت قاعد حني وضع روتين مالتي. روتين كانوا مالتي أحد هاد أو شلي هاد بصوت وباي ما روتين كان ما تحقق نكبل عمنا وكصوت حقنا إما هذا. marka imaad gaas xagana karin baa meesina xagana hada moolka iska fiifiyna ama kaafiyay xagana hada kareen wajiga kareen meesinaayay marka saa u jeedaan hada kareenka marka marsaday kareenka la soo qaatay asna wajiga marsaday marka marsaday kareenka marka wajiga mas xagana kareenka la soo qaatay gacmaha iska mirmiriyay marka mirmiriyay xagana soo kacay marka soo kacay xagana book raadinaya guys book ina bilaaway laakiin book waa xagana hada book raadinaya marka karaada xagana iska eeg buugana arkay buug weynaantiisa la yaabay marka iska dhigay kalba buug waa xag ina karaad buug waa akhriyo meelaha marka xagana iska xiray waa imaada online baa buug raadinaya marka xagana hada soo fariistay saacada eegay marka saacada eeg xagana hada buug iska marka buugi akhriyo xagana imaada hadhow xagana ku akhrinayay adkaar subax baa ku akhriyay marka adkaar subax ku akhriyay hadana waxa ugu dhameeyay subax xigtada imaada xagana xasmiinay qado maanta waxa sameeyay biisa sameeyay marka xagana xashaay ma lahaay burki biisa xashaay qamiir baa soo qaaday qamiirka marka soo qaaday afkar uu soo qabakiibo aan soo xadaashanay sarkaa anyway mid kale afkar uu Muhammad يعني من الحاجات يعني أنا كتبت أنا عليه أنا سوق أنا سوق كل شيء أنا بقول بعد ما يوم سبعة ولا يعني تيجي أنا صدق على كذا 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 أنا في مصر عشان حاسس كذا guys bisa dibalotnya masih bagus waraqada soo qaadnay waa saarnay si waa markii ugu horeysay abdi sameeyay oo qaata sameeyay فيصل الدجاج يصح ولا لا؟ نعم نعم الله لا يرد هذا شبعان فلوس يا رجل هذا من النعمه الظاهر ان حتى يستقبل 500 فلوس عنده طيب ليش ما تروح له؟ خلي يشوف لك وظيفه لا مناسبه لا الحين في الذبايح يمكن اكثر من 40 خروف واحنا في عيد الاضحى اللي راح ما لقينا قيمه تضحيه واحده الله يردد. Med informationsskærm fra Nordic Screen er der hurtigt i gang med at kommunikere et budskab ud til dine omgivelser. Den simple og unikke cue. وتخيل الكلام جاء فيصل ولد كبير عم يقول هالكلام حسيت انه فعلا انا لا والله انا جاي هنا يقول مر على المدير لا تشيلها تجي الشركه وتطلع يعني زي الجر امشي يا بنت العم امشي ولا يهمك هذا حلالي اصلا ما دام حلال عمي حلالك كيف حلال هذا انا مسؤول عنه نفسي في المكان فعلا كنت موظف اجي بدري وغادر اخر واحد بس ما اكذب عليكم انه مع الايام كنت اجلس انا وصاحبي وحيد هذا بالله مساء وقتها سيدا وحيكون وضعي كبرك في ولد تلك الملايين بإذن الله أرمتي نوعي سؤال اللي يبني هاي القف نستحيس كسودين مارلين حتى وقت مالك الستة كده أيام وحسك سودي سنو حيا حيب نسد الله يصلحها في حافة دوي من سلوك وبصري بكا كودو ما كارتي كمان نحن ويتصل شيء أو حب هاي سودو لكن هالمر أيام وحاول أصلب حب أسطورة ديتنا وحاول بلارين أسطورة الكوتيريو عادة أيام وحاي شون إيا مكا إيا أنفرير كنقطي dadkii maalin la sugnaa iyo dadkii jaan soo soo kabixiyay maalin taariikhi oo la bilaabay ayuu noqday hadaba qornay aad noqotay ee lagu maalin ayaa maalin si degan si caadi ah ka soo toosay guriga waxaan bilaabay in quraanteedii samaysato ay subaxanta ku sameeyay quraanada ayaa iyo guriga ka shaqo waxaan joogo guriga labada jira iyo saddex wiil oo saaxiibadiya oo maalin markii hore weyn oo habeenada si qasay guriga bros oo saaxiibadiya asaga soo boqday waqtigaas asaga wiilkaas ayuu ka shaqay oo daaw ayuu asaasi oo ay wiilasha saaxiibadiya maalin markii hore weyn oo saxay abaa ka hay tobankii iyo shaqada farta daqiiqo soo joog iyo wiilasha saaxiibadiya oo TV iska daawanay halka ay ka مالين أنا واحد وصلت على النحاسية لا بس يبدأ بس وقفت الشخصية اللي نبغى نحاسب وحنا نحاسب اللي بيبدأ تبيزي بدري وحنا بس الموضوع الله قوي وحاول الله كان موضوع كان واحد وياه بيبي قعدت أنا استلمت وحنا صباحي كانت ويفرح هذي ويدور على سي وحنا قلت لي وما حصلت لكن فرح هذي ولا هذي ما نسيت عن دقيقة حتى أو حكيت وحكوا لكن كلام كان مهرجة أو صورة كسر وجهي فالفيديو كان سوي وحكيت وحكوا شيء بس بحس كبرتي برتي أي كنت لي وأنا مالين سكن دي قلت بيجي مش لا كي روتين أي يطلع بوحدي أنت اللي كان أيام وحكي هاي فكرة بيها ولا ما كي حتى ما بحس ما نعرف ترتيب أصلا وصلت ترتيب ودي كنسل وغيره أيام وحاب بارين أي مش غير
gaarigiisa yaalay gaarigiisa ayaa furay wiilkeedii joog oo dhawr rasaasta ku helay inkastoo lugta ka jabnaa ayaa haddana soo degdegay oo waa shoogay waxa laaliyo wuxuu ku hadlay garan waayay hooyadii oo dhiig baxaysa waa baabka hortaala iyo nin kale telefoonka oo sii socda gaarigiisa sii fuulay isla markiiba joog telefoon ayuu soo qabsaday waxauna wacay booliiska waxaana ku yiri hooyadii rasaas ayaa ku dhacday ku taal fadlan soo gaaray joog waxa laaliyo wuxuu ku hadlayo waxa ahaa deegaanka deegaan iyo nabad shaki waa deegaan dadku si kala sugan meel iyo ayuu waxgaarsiin kartaa ayuu haystaan mashaakilkan aana jeclayn oo ay deegaanka deegaan ku yaalaan guryo cajiib ah guursatayna ascaru ayuu watay oo xaas fara u dhashay sidaas awgeed waxay go-aan ku gaareen ku heshiiyeen in carruurtaasi isku darsadaan reerkaasi wada dhistaan ay wada korsadaan inkastoo bilda waxaa dhulka la galay oo kala gedgay oo baabi'iyey shakhsi asagoo u adeegsanaya clownkii ay gabadhani aadka u jeclay waxaa wada bulshadii iyo qoyskeedii iyo carruuradeedii kala tegay raad lama ilaabaan Never do anything like that. You said, don't put it past him. If anything happens to me, Mike did it. dilkeedii haddaba sanada badan ayaa sugayay dambiilihii gabadhaasi ka dambeeyey dilkeeda si kasta waa loo baarigoobay si kasta loo raadiyey waa lagu guuldaraysan bil arrinkaa u dilay ayaa waxa waqtiga usuro boqolba sana cusub bilaabma u dhamaado dambe sanadii 2017 ayaa joog waxa uu ogaaday dambiilihii waxa uu ogaaday runtii aad la yaab waxa uu ku tilmaamay inuu shakhsigaasi ahaa shakhsi dhooban oo dheer oo ku dhawaad dharkiisa wuxuu ku qiyaasay ilaa 6 feet timihiisu wuxuu ahaa timo midabkiisu orange yahay oo haddana midaba isku jira ah afkiisu aad ayuu u ballaarnaa wejigiisa uu joog u sifeeyey dambiilaha dambaarayaashu sanado badan ayaa iyagoo adeegsanaya ay dambiilaha ku baadigoobeen qaab kasta iyo meel kastana ay oga maalin ee labada maalmood ka dhacay asaguna isla shil gaaray sabab markaa gabadha ayaa ahayd xaalado kala duwan wiilkeedii oo shil gaaray ku dhintay ninkii kuleedii ninkaas nin hore ayuu ahaa way kala tegeen haddana dee laba caruur ayuu dhashay stiil uu saameeyey shilkaasi gaaray ku dhintay iyo sidoo kale ninkan ninkii Mike Warren ahaa ee hooyadii qabi jiray Joe aniga idiin sheegay dambiyo fara badan ayaa lagu soo eedeeyay waxaana u guureen Las Vegas ayagoo halkaasi nolol cusub ka baqa oo gabi ahaanba ka fog shay waxay ka dhigtay wiilkaas jooga orange waxaana halkaasi ka furtay restaurant makhaayad ay leeyihiin oo lagu magacaabo Purple Cow qaas noloshii hore iyo gawaridii wixii dhan faraha ka qaaday nolosha dambe makhaayaddaasi waxay mid ku sii jireen cuntooyinka fast foodka laba sano cuntooyinka degdega waxaa jirta haddaba meeshii ay guriga ka gatay gabadh ay jecel lahaayeen Brooke waxaa lagu wixii wiilkeedii gabadhaas ka qaaday TV oo show magaceedii hore deegaankii hore ku noolaayeen ayaga dadka waa soo asay geligiisa gabadhaas waa maxamed nashin gabadhaas lagu magacaabo gabadha sheeyla sheekadii hore marka waxay leeyihiin labada waxaan yidhahdeen waxaan maqli jiray xanxan intii la yaab qofka gabadhii hore dilay sidaas oo kale ayuu ka mas'uul yahay wejiga waxuma marsaday kulli labisay geeska gabadhii waxay waxaan lagu sameeyay kaloo waxay waxaan lagu yaqaan hadda sax yaal sanadii 2017 qalbiga waxaan ugu joojiyay waxaan badanaa iska wada joogi jireen gurigoodii weynaa ee yaala Virginia لكن صح الوضع وتكدي واحد صباح حي واحد يقال الدين اساس كيسن او حدنا وتبلن او نقي كول كيس ايا سنتي لو قفرت وانك وحل عصري ان كيس 60 لو فور كيس كان في لو فور باريتان فر بدن او دير لسميه هذا فر بدن لو وي هذا اللي قاعد لا دخل تيجي ما حي بقري سنتي لو قفرت وانك ايا شيء لا كان انت لو سو دير وحالي ايا مقرن لكن عديمها الله هيو waxay muujin in falwiye midooyeen laakiin weydihi ayaa su'aal oo ku weydiiyay waxa ku yiri kiiskan lagu soo eedeeyay in leeyahay gabadhaas bi kala qayb baha qaybiyada idana waxa soo jawaabay may idana hal su'aal uu weydiiyay waxa weeyaan shay la su'aal fara badan ku weydiiyay waxa ku yiri ayaa maxkamadda horteeda hadal noocaas ka jeedisay oo reeyay noocaas tii idana waxa lagu jawaabay asal ahaan horta yaa ku shay ayaa dib yaskir bisay la fikir oo taana dib yaskir bisay soo ha marxatiyaashii kolonkii dilay Marlin ayaa lugay oo dokumentigaasi waxa fara badan marxatiyaal iyo cadeymo fara badan oo waxa fara badan ayaa dhigtay Marlin oo aad ugu rajooyay inay aragto oo ogaato inay xiisare oo tiyaado weeydo doontaan oo noo soo socdaan ka biyaana kiiskan maanta ka soo yahay